kulanti wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii falanqaynta wararka warbixinada diblomaasiyadda maqal media group iyo falanqaynta waaweyn oo dunida oo idil. daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkaasaan ku eegi doono dowladda Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay faragelisay awoodaha maamul goboleedyada. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shirki golaha wadatashiga qaranka iyo hogaamiyaasha maamul goboleedyada waxaa lagu soo qaaday awoodda iyo federaalinta wadanka Soomaaliya. dowladda Soomaaliya ayaa u muuqata inay markii horeysa ku dhiiratay inay meel loo baahna inay taabatay maamulada sida badan. Soomaaliya ayaa dowladda federaalka Soomaaliya ku taageeray in ay dowladda Soomaaliya ay gabi ahaanba la wareegto arrimaha ay ka mid yihiin xuduudaha, arrimaha dibadda, garsoorka, jaangoynta siyaasadda arrimaha dibadda iyo waxyaabo badan. madaxweynaha Soomaaliya ayaa boog loo baahnay ka taabtay kadib markii uu u sheegay maamul goboleedyada wadanka Soomaaliya inay dowladda dhexe ee Soomaaliya ay aad u danaynayso inay maamul kasta oo federaalka hoos yimaad inay xarumo waaweyn iyo meelo ay dowladdu kala socoto dhaqdhaqaaqa inay ka samayso. maamulada kala ah Jubbaland, Galmudug, Hirshabelle, Koonfur Galbeed, gobolka Banaadir ayaa soo dhaweeyay, halka madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni uu ka biyadiiday arrimaha faragelinta ay dowladdu ay ku sameynayso maamul goboleedyada wadanka Soomaaliya. shacbiga Soomaaliyeed ayaa in badan daneynayay taasoo dowladda Soomaaliya inay tagto gobolada waaweyn ee wadanka. deegaanada Puntland haba yaraatee waxaa ka jirin harnaan heer federaal ay dowladda Soomaaliya ay ku joogto halkaas. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhankiisa soo qaaday canshuuraha iyo dowladda Soomaaliya inay daneynayso meelaha waaweyn oo kaabayaasha dhaqaalaha inay gacanta ku dhigto sida dekedaha, eelaboorada iyo meelaha kale oo muhiimka. maamulada sida badan waa soo dhaweeyeen, halka Puntland ay u aragtay mid ka dhan ah siyaasadda Puntland. Puntland ayaa leh maamul goboleed weyn oo ka fac weyn maamulada Soomaaliya iyo dekedo iyo eelabooro ay casri u dhistay, taasoo ay u aragto inay tahay mid khatar ku ah jiritaanka iyo arrimaha dadka deegaanka Puntland. balse dowladda iyo shacbiga Soomaaliyeed aad u soo dhaweeyay arrimaha ay ku dhaqaaqday xukuumadda federaalka Soomaaliya. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u muuqda inuu ku dhiiraday hogaamiyaashii hore ee Soomaaliya waxay ku dhiira waayeen, taasoo uu madaxweynuhu si cad ugu sheegay maamul goboleedyada inay dowladda Soomaaliya inay dakhli ka qaaday waajib tahay deegaanada badan ee dalka, taasoo ah mid go'aan wanaagsan. arrimaha la gorfeeyay waxaa ka mid ah arrimaha federaaleynta wadanka, garsoorka, halka Puntland ay sheegtay inay garsoor u gaar ay qabto taasoo sharci darra. arrimaha federaalka dunida ayaa ah inay dowladda dhexe ee Soomaaliya maxkamadda dastuuriga ama Supreme Court waxa loo yaqaano ay gacanta ku hayso. maamulka Puntland ayaa u arka maxkamadda Supreme Court oo ah maxkamad awood badan ee sharciga wadanka dhan ama hogaamiyaasha wadanka oo dhan ay hoos imaanayaan iyo qof kasta oo khaladaad geysta. maxkamadda dastuuriga ama Supreme Court-ka ay dowladda Soomaaliya ay doonayso inay ka hirgeliso dalka Soomaaliya ayaa ka biyadiiday madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni. madaxweyne Deni ayaa la sheegay inuu arko arrimo ka dhan ah maamulkiisa iyo asiga. hogaamiyaasha saxiixay waxaa ka mid ahay inay maxkamadaha ay hoos yimaadeen midda sare ee wadanka Soomaaliya ay fadhigooda ay ahaan doonto magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. madaxweynaha Jubbaland Axmed Islaam Axmed Madoobe, madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Maxamed Laftagaren, madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor, gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Madaali, iyo madaxweynaha Hirshabelle Ali Guudlaawe Xuseen ayaa saxiixay qalinkana ku duugay arrintaas. balse Puntland ayaa sheegtay inaysan taasu ay hadda la joogin waqtigii laga doodi lahay arrimaha federaalinta iyo garsoorka wadanka Soomaaliya. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu wadaa inuu dalka ka hirgeliyo
tan iyo 2026 uu xukunka joogi doono. Maxkamad dastuuriya iyo dhammaynta heerka dastuurka federaalka wadanka iyo awoodaha maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku dhiiraday inuu tilaabo amba uu go'aano waaweyn ka qaato arrintaas. Waxaa lagu soo waramayaa haddii ay ansixiyaan baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliya heerkan in maxkamad dastuuri wadanka loo yeelo maamul goboleedyada kale ee wadanka ee saddexda iyo gobolka Banaadir ay qalinka ku duugeen ay ahaan doonto mid saameyn doonto maamulka Puntland oo ka biyadiisan arrimahan, taasoo madaxweynaha Puntland uu sheegay inuusan waqtigeeda la joogin arrimaha federaaleynta dhammaynta dastuurka kadibna imaan doonto maxkamad dastuuriya sida uu ku doodayo. balse waxaa u muuqataa inay dowladda Soomaaliya ka go'an tahay in ay qaado tilaabo waaweyn ay wax ugu qabanayso isku dhexyaaca awoodaha dhexe iyo midda maamul goboleedyada. Maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa ahay laf dhuungasho ku noqday xukuumadihii ka horeeyay Xasan Sheekh. Madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xilli uu ka istaagay arrimaha dhexdhexaadka dalalka Imaaraadka iyo wadanka Qatar iyo Sacuudiga ay maamul goboleedyada Soomaaliya ay sheegeen inay la jiraan dalka Sacuudiga iyo Imaaraadka, taasoo ka dhanaha Qatar. Madaxweynaha Soomaaliya iyo xukuumaddiisa uu hogaaminayay Xasan Cali Khayre ayaa sheegay inay dhexdhexaad ka yihiin arrimahaas, aysan dhex boodi doonin dowladda Soomaaliya, inaysan iyadu ayna ku milmi doonin arrimaha khaliijka iyo waxyaabaha ay isku haystaan dalalkaas, taasoo oo guul u noqotay siyaasaddaas dhexdhexaadka ay ka qaadatay xukuumaddii hore. maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa miciyo waaweyn leh dalkana marar badan jaangoynta siyaasadda arrimaha dibadda iyo midda gudahaba, kana haddii la fiirsado ka awood badan midda federaalka ama midda dhexe ee Soomaaliya. daawadayaashayna qiimaha badan, warkaas intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa. Nabadgelyo.